وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما سؤالك وضوء أنو قرآن كأخريو حديها أي توست سجود التلاوة قرآن سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق ما بقدم على سي وسجود وقترب سجود التلاوة قدم على سي حدي أنا سجود ما بنقدر سي markaan sujuudi hako kaha antiana surumo kubaadan hadana suurado bilaabo ama aayado ama lamado aayadood markaan akhri kubaada rukuudii aan rukuudana sujuudo rakaadi saas aan ku dhamaay in binawta marka intii aan sujuudo oo meelile ana ku reebo oo sujuudu talaawo kala baan sujuudni ama isku rukuuc in binawta ama ma in binawmse waajib waay إلهي سبحانه وتعالى قرآن كيس ما يبقى جرته تومي أفر ميلود أو سجود سجود اسمه ما يبقى لأري سجود التلاوي لأري وسجود وقت تريبا كمد أو يعني قرآن كمي لسانك دم بيت أو أنتي سجود تومي أفرت ما يبقى هنكوريت سورة يعني أنفال يعني آخر يعني كوريت أنت كالمركة قرآن كشاك جرام marka sujuudugaas oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanka ku kooyan oo 140 meelood sujuudu talaawilan kase intii la sujuudo iyo intii la katabana intii la sujuudo sunno waay sunni iyo waajibna ma baleeray waajib ma waaye shay Ilaahay ki adoonsaday hadii aad suubido Ilaahay abaal gud farabadan ka siiyo qaabkii nabi Muhammad alayhi salaatu wasalaamna sidii usuubiyaa wal waafaqsan amal hadii aad la koyt abaal gud la koosiyo hadii aad ku tabtoona laakiin cadaabo shaygaas ma baleeray waajib leeray ama sunnana ma leeray shay hadii aad suubido annaba anka deeyid aad suubido oo Ilaahayna ki jeelada abaal gud farabadan la kasiyo hadii aad isku dhaaftona laakiin ku qobsadaan kaasna sunna leeray marka sujuudu talaawa hadii haki aad adoo ku deeydaas nabi Muhammad alayhi salaatu wasalaam ma bafayle intii aad sujuud oo markaas hadii sujuud ku dhamaatona antii aayado ama lamado aayadood hadii baad xafdiisanta intii aad akhrido ku baadana rukuudi lamaad aad la koyto saas markaas salaadaada ku dhameystirto ama hadii sujuud waqti taribleeda arto oo meena sujuudu talaawo ad ineen dhina oo saaslay salaadaada ka dhamaysaton iyaan iska faylata ma in sujuudu wayti lanka eram wala hadii aad sujuudona sunnadii nabi Muhammad alayhi salaatu wasalaam iyo markii Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo nabi Muhammad alayhi salaatu wasalaam in sheegay inta sunnay iyo fulidi taas marka waana sujuudu korta waana ku tabakorta hadii aad sujuudona nabi alayhi salaatu wasalaam aan ku deeyati iyo markii Ilaahayna qaadatay hadii aad sujuudu waytona meelasla isku rukuudo oo salaada meel leh ku gabagabayta hadii sujuudan dhamaata suuradaas lan walkin haysada male iyo sunno waay sunnada nabi Muhammad alayhi salaatu wasalaam ku midata ama su'aal lamaad oo yani an oo salaatu leel tukudo salaado witarka la rabo oo yani 8 rak'adood an ka dambeeyaan yani 6 suuradood oo qul huwallahu ahadun oo isla suuradaas 6 jeer akhri kore Ilaahay subhanahu wa ta'ala ma baaray usoo ku hadalo nabi Muhammad alayhi salaatu wasalaam usoo ambayaanayo salaatu leelka faqra'u ma tayassara min alqur'ani salaatu leel hadii tukudaasan wal allaal wali markaaseen fudusaad oo qur'aanka kamid ku tukuda aayado haatoy lamar meena lama aayado haatoy sida aayado haatoy suurado gaaban haatoy suurado dheer haatoy wali markaas keen fuduso adana oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku caabudu korto qur'aankana antibaada kasaas yani akhriyas wal dhibaato leh ama akhrinta hegshe marka meena 6 jeer suurado kana naga kore sida qul wallahu anoo markaasna fiiriyo nabiga alayhi salaatu wasalaam hadalkiis oo yani lankii qul wallahu ahadun oo suuratul ikhlas akhri meena ma balamid qur'aanka nus yawaay qur'aanka
sida meelood meel iyo akhri amala la mid ata maadaama hadalkaas aan fiiriyo marka sida jeer haddii aan akhri qur-aanka noo dhammaay oo kale la mid ataa iyo si ajarka ilaahay subxaana wa tacaala aan ku hela qur-aanka meel alla la meeliyada akhriyeed ajara loo ku hele nabigana sala allahu calayhi wasalam ma beeray yacni lanki qur-aanka ilaahay subxaana wa tacaala akhri alif laamin xarafo ma eraw walaakin alifun xarfun wa laamun xarfun wa miimun xarfun laamka xarafway miimkana xarafo alifkana xarafo alifka tumun ajara lagu hele laamka tumun ajara lagu hele miimkana tumun ajara lagu hele lankii suuratul ikhlaas akhriyona waaba ku sii darantaba intaasoo ajar oo ilaahay gis lagu hela jarta marka akhri korto wal dhibaato lena male way marka gudwalaawna hakanana korto saxaabi oo saxaaba rasuulka sallallahu alayhi wasallam kumid ya marka mas'uul ku dhiki saxaabadan timeel an bahan safar meena mas'uulkaasna ma waay salaado si dad tujiisiye hogaanku si wade markii salaadada tujiisiyo markii oo lamada rakaadood dadku tujiisiyowba suurad walba uu akhri haddana may baxa kalamaaniyay qul huwallahu ahad saxaabadii dhibsadeen meerena lankun walaaw inta ka sheeni may weelay xilligii nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam dadka mayba ku fiiriyana sidii nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam suubi jiri walan hayna lokooy waayo nabaga ma ku haayan haddii lama rakaadood lanka dadku tujiisiyo faatihada us akhri suurada kale us akhri haddana suurada kale mayba ku gebagabaya ma kalamaanay qul huwallahu ahad markaasa nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam aan kooyn lankii mas'uulka adanin ku dhigtay sidaas suubiyahay rasuulkii ilaahay lankun wala kale lokooy mar allaal markii salaadada tujiisiyo lama rakaad haddii ato oo jahariga rakaada koowaad faatihad markii akhri suurada kale us akhri suurada kale gulwaliha ka dare markaas lay rakuuce nabiga alayhi salaatu wasalaam maaba ku alna maba eray usuweydiya sababti ku khalifti usuubi weydiyaari markaas la weydii meeray ilaahay subxaanahu wa tacaala suuradaas oo qur-aanka ka mid ah suuratul ikhlaas la araw aayad walba mayba ka jirtee ilaahay magaajay iyo tawxiidkiis iyo ka hadalaas sidaas dartee annana injiiladii markaasa nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam meeray allihii suuradaas daraadis aad injiilati ilaahay usuuna ku jeelada dooda nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam maqbuul way marka eeda markaan faylato suurada oo meenaha abaalgudshe iyo ajarka lagu helawna wallaha koobo kormee sidii saxaabigaas oo kalena suubi korta inta rakaadood aad tukudaasana iyo leexa kuna naqsado korta faatihada ku bacda wal dhibaato lama leh ilaahay may bana eray faqra'u ma tayassara min alqur'ani ya ilaahay subhanahu wa ta'ala na eray ama mas'alad kale marka meelun fadahay marka intiina ku tilmaam oo Soomaalida intiyo badan ba eedan aaminsiin waana meenaha baadila tawalna ku jirna sidoo oo nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam tartan geliyay Abu Bakar iyo Umar iyo Uthman iyo Ali ya tartan geliyay leeray markaasa ma baleeray lankii quraanka baqaraha ku bilaabo kubada birabbinaas horsheeno dhamay faadama bint rasuulillah sallallahu alayhi wasallam asiyari markaasa Uthman bin Affan jaami'ul quraan la eray quraanka marka birabbinaas ha ku bilaaway si han wadi tantisa akhriyasay heedidisa akhriyasay Ali ibn Abi Talib lan dukle hay maalmaha kumida maba ku dheegay lanka gulwala akhri lanka quraanka dhan akhri oo kala limid ee dheegi gulwallahu ahadun Allahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahadun la akhri marka kufuwan ahadun aray usun birabbin mina Uthman bin Affan usuna yani usoo marka wadha amal meelaas hamaraw يلا كنا الله أكبر أري أنا أخري وينبأ الله أنا أخري هم أقول ما أوي لنكون بربنا منها بقرها كبلا وي أذنا منها بقرها كبلا وتسي